qof aanan xumaan lahayno ma jiro adigu ma nadiifaa tahay waa may waxaan inta badan ku arkaa baraha bulshada arrimo aad iyo aad iga yaabiya baada way anigu ma ihi dadka inta badan Facebook ama wixii la mid inta badan ku badan shakhsiyan alxamdulillah balse arrimaha dhibka badan waxaa ka mid oon arkay oo aadka dadka qaar u xanuujinaya had arkaysaa qof shakhsi qof kale walaalkiisa ku taagan maanta 12 wax ka sheegaya duraya xooga qaar aan waxba ka jirin iyo qaar laga yaabo inay roon yihiin ama maxay tahay xaqiiqada ku saleysan yihiin xumaantiisa uun raadinaya oo wanaag qofkaas oo sameeyba aan ka hadlay walaalayaalow aan rabbigan u soo laabano qof kasta oo xumaan uu leeyahay ilaahayna subxaanahu wa ta'ala qofka xumaanta qofka kale walaalkiisa daba raacraaca isagana xumaantiisa banaanka la keenaa bar rabbigiin ka baqa iskana daaya xumaanta iyo dadka walaalaha kale ee aad duraysaan xumaanta ka sheegaysaan qofka kani haddii aadan wanaag u samayn karin haddaadan u naseexaynaynin faraha ka qaad xumaantan aad sheegaysid adigay dhibaato kugu tahay waqtigaagaad ku bixinaysaa dembiyaa kaa soo gelaya maxay tahay faa'iidadaad ka helaysaa ma lacag walaalkayga wadooyin badan oo aad ku samayn kartaa jirta soo walaalkayga iyo walaashayda i dhageysanayo waxaan idin leeyahay rabbigiina ka cabsada qofkan walaalka xumaantiisa aad raadinaysid iska daa adigu taada ku mashquul qof aanan xumaan lahayno ma jiro adigu ma nadiifaa tahay waa may ilaahay u soo noqo iskana daa walaalkaaga ceebtiisa aad raadinaysid intaas ayaan ku soo koobayaa والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.